بسم الله الرحمن الرحيم وحنكو بالله يا الله مجعيسى كاسو نحريست جود يو نحريست جاركا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وحنكو دارنا يا هبينكي مركو مجديو وحنكو دارنا يا مالك مركو فيدمو وما خلق الذكر والأنثى وحنكو دارنا يا الله أبوري لبك يوددق إن سعيكم لشتى intaas ayaan ku dhaartee camalkiina waa mid kala tagsan oo kala duwan فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ruuxii wax bixiya haddana Allah subxaanahu wa ta'ala ka cabsada oo haddana rumeeyo tii wanaagga badneed فسنيسره لليسرى qofkaas waxaan u fududaynaynaa tii fudeedka badneed وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أما qofkii wax bakhiilo haddana deeqtooma oo beeniyo midda wanaagga badneed فسنيسره للعسرى qofkaas waxaan u fududaynaynaa tii culayska badneed وما يغني عنه ماله إذا تردى mana deeqaayo xoolihiisa markuu ku dhacayo naarta dhexdeeda إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى waxaana dusheena ahaaday inaan u kala cadeyno jidka xun iyo jidka wanaagsan annaga ayay noo sugnaatay midda dambe oo aakhira ah iyo midda hore oo adduunka ah فأنذرتكم نارا تلظى waxaan idinka digayaa naar hurayso لا يصلاها إلا الأشقى naartaasoo aanan galaynin ilaa qof ayaan daran mooye الذي كذب وتولى kaasoo beeniyey xaqa haddana jeestay وسيجنبها الأتقى waxaa laga fogeynayaa naartaas qofkii Allah subxaanahu wa ta'ala ka cabsaday الذي يؤتي ماله يتزكى kaasoo bixiyey xoolihiisa asigoo isku daahirinayo وما لأحد عنده من نعمة تجزى wuxuuna bixinayaa asigoo qofna aan ugu sugnaanan agtiisa abaalkaas uu gudaayo إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ilaa raadin uu raadinayo mooye Allah subxaanahu wa ta'ala wejigiisa allihii sareenta badnaa dib ayuu raali noqon doonaa qofkaas بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku bilaabayaa Allah magaciisa kaasoo naxariista guud iyo naxariista gaarka ah والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها waxaan ku dhaaranayaa qoraxda iyo barqinkeeda waxaan ku dhaaranayaa dayaxa markuu raaco qoraxda والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها waxaan ku dhaaranayaa maalinka markuu feedo dhulka ama mugdiga waxaan ku dhaaranayaa habeenka markuu daboolo dhulka ama qoraxda والسماء وما بناها والأرض وما طحاها waxaan ku dhaaranayaa samada iyo Allah subxaanahu wa ta'ala dhisay waxaan ku dhaaranayaa dhulka iyo allihii fidiyey ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها waxaan ku dhaaranayaa naf iyo allihii simay oo fahansiiyey macaasideeda iyo alle ka cabsigeeda قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها waxaana liibaanay qofkii tahira nafta waxaana khasaaray oo hoogay qofkii duuga nafta oo liida كذبت ثمود بطغواها waxay beenisay Thamuud qooq daraadiisa nabigii loo soo diray إذ انبعث أشقاها waxayna beeniyeen xilli uu u soo baxay kii ugu ayaan darnaa فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها markaas wuxuu ku yiri rasuulka Ilaahay war iska ilaaliya حشي الله سبحانه وتعالى يعبده فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ويبيني النبي
markaasay boqon gooyeen hashii waxaa halaagay rabbigooda dembiga ay sameeyeen sababtiisa halaagana wuu ku simay walaa yakhaafu cuqbaaha ilaahayna kama cabsanayo halaagaas ciribtiisa dambe بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku bilaabayaa Allah magaciisa kaasoo naxariista guud iyo naxariista gaarka ah لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد waxaan ku dhaaranayaa beledkan oo loola jeedo Makka adigu waxaad tahay Maxamedow mid uu u bannaan yahay dagaal beledkan dhexdiisa ووالد وما ولد waxaan ku dhaaranayaa waalid iyo wuxuu dhalayba لقد خلقنا الإنسان في كبد xaqiiqdii insaanka waxaan ku abuurnay kadeed ama mashaqo dhaxdii أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ma wuxuu u malaynayaa insaanka inuusan awood ku lahayn dushiisa qofna يقول أهلكت مالا لبدا markaas wuxuu leeyahay waxaan halaagay oo aan baabi'iyay xoolo fara badan أيحسب أن لم يره أحد ma wuxuu u malaynayaa insaanka inuusan qofna arkaynin ألم نجعل له عينين miyaanan u yeelin laba indhood ولسانا وشفتين carab iyo laba bishmood وهديناه النجدين miyaanan u cadaynin labadii jidka xun iyo jidka wanaagsan فلاقتحم العقبة muujiiro marka insaanka jiirta وما أدراك ما العقبة maxaa ku ogeysay nabi maxmedow waxay tahay jiirta فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة waa qoor xoreynteeda ama waa quudin la quudinayo maalin baahi u saaxiib ah dhexdiisa يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ama waa quudin la quudinayo agoon oo qaraabada ah ama waa quudin la quudinayo maskiin oo dhuldhac u saaxiib ah oo arrada jiifo ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة intaas kadib uu ka mid ahaado kuwa rumeeyay Allah subhanahu wa ta'ala oo haddana isu dardaarmay sabirka iyo isu naxariisashada أولئك أصحاب الميمنة kuwaasna waa midigta dadkeeda والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة kuwa ku gaaloobay aayadaheena kuwaas waa bidixda dadkeeda عليهم نار مؤصدة dushoodana waxaa ahaatay naar waana lagu daboolayaa